magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo golaha midowga musharaxiinta. kulanka labada dhinac ayaa lagu arrinsanayay marxaladda doorasho ee dalka si gaar ah jadwalkii dhamaystirka oo ay dhawaan shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer federaal kaas oo ay kaga soo horjeesteen maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. sidoo kale dhinacyada ayaa ka wada hadlay dedejinta doorashooyinka kamir dhalinta jadwalka doorasho oo ay soo saareen guddiga iyo xal u helidda caqabadaha dhamaystirka doorashooyinka. qoraal uu bartiisa Facebook ku soo daawacay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaa yiri waxaan maanta kulan la qaadanay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo aan kala hadalnay dedejinta doorashooyinka kamir dhalinta jadwalka doorasho oo ay soo saareen iyo xal u helidda caqabadaha dhamaystirka doorashooyinka. sidoo kale qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay inay ka go'an tahay in la dedejiyo doorashada si dalka looga saaro firaaq dastuuri loona helo hoggaan iyo hay'ado sharci ah. midowga musharaxiinta waxaa ka go'an in la dedejiyo doorashada si dalka looga saaro firaaq dastuuri loona helo hoggaan iyo hay'ado sharci ah sida ay ku sheegeen warkan ka soo baxay midowga musharaxiinta maanta. Cabdi Xaaji, Warbaahinta Nation, Muqdisho.